wafdidan oo ka soo kici timay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxay maanta soo gaadheen magaalada Nairobi waxaana wafdidan si weyn ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta jaaliyadda Khaatumo ee Bariga Afrika iyo mas'uuliyiinta safaaradda Soomaalida ee dalkani Kenya. wafdidan oo isugu jirtay golayaasha dhaqanka iyo siyaasadda ee maamulka Khaatumo State ayaa waxay muddooyinkan dambaba socdaal ku marayeen wadamada dariska la ah Soomaaliya waxaana safarro kala duwan ku soo mareen wadamada Itoobiya iyo Djibouti oo ay ka wada hadleen sida ay sheegeen xoojinta wada shaqaynta maamulka Khaatumo iyo dawladahaasi waxaana goor dambe oo galabta ay soo gaadheen dalkani Kenya. qaar ka mid ah golaha isimada dhaqanka ee maamulka Khaatumo oo warbaahinta la hadlayay soo dhaweyntaasi kadib ayaa aad ugu mahadnaqay dadka reer Nairobi sida ay ugu soo dhaweeyeen iyagoo sidoo kalena ka warbixiyay safaradii ugu dambeeyay ay ku marayeen wadamada dariska ah. rag iyo dumarba si fiican oo cajiib noo soo dhaweeyeen aad iyo aad baynu ugu mahadsan yihiin waana u mahadnaqaynaa waxa weeyaan sida aad ogtihiin annagu muddo waxaanu joognay magaalada Muqdisho halkaas oo aanu hawlo u joognay muddo ku dhow 45 casho runtii hawlihii halka aanu nimana aad iyo aad bay intooda badan ay noogu qabsoomeen ummadda magaalada Muqdisho ku nool oo dhan dawlad ahaan iyo shacab ahaanba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sidii ay noo soo dhaweeyeen sidii Soomaalinimada ay noo soo dhaweeyeen. waxaanu mahad celinaynaa safaaradda Soomaalida safiirkeeda oo tasiilaad fara badan noo sameeyay Maxamed Cali Americo waxaanu mahad celinaynaa guddiga jaaliyadda Khaatumo State iyo Soomaalidii kale ee nagu soo dhaweysayba Muqdisho ka nimid Muqdisho wuxuu ahaa safar aanu ku maraynay dhammaan inta danaha Khaatumo State of Somalia ay la wadaagto safarkaas oo ka bilaabmay dawladda deegaameedka Soomaalida Itoobiya sida ugaasku sheegay waa mahadinaynaa sidii wacnayda noo soo dhaweeyeen dawladda Djibouti dawladda federaalka ee Soomaalida. madaxweyne Cabdinuur Cilmi Qaaje Bindi oo dhankiisa warbaahinta la hadlayay ayaa isna carabka ku adkeeyay in la ilaaliyo midnimada ummadda Soomaaliyeed isagoo nabad iyo deris wanaag ugu baaqay maamul goboleedyada kale ee ka jira dalka Soomaaliya. dhanka kalena waxaan wax ka weydiinay dareenkooda qaar ka mid ah dadweynihii ka qayb qaadanayay soo dhaweyntii wafdidan. waxaa farxad weyn noo ah aniga iyo dhalinyarada aan hogaamiyo inaan ka soo qayb galno oo aanu isugu nimaadno airportka Jomo Kenyatta Airport oo Nairobi ku yaala inaanu u nimid inaan ku soo dhaweyno madaxdayadii isimadayadii garaadadayadii oo aan u dabaaldegayna marka ma soo koobi karayno farxadayada anagoo ku hadlayna gabdhaha reer Khaatumo State of Somalia. waa galab runtii ka tilmaanaan doonta insha Allah taala hadii Ilaahay ka dhigo galbaha kale ee ay jaaliyadda Khaatumo ku soo jirtay galabta waa galab aad iyo aad u qiimo badan. alxamdulillah rabbil caalamiin aad iyo aad waan farxadayada iyo dareenkayga u taageeraynaa ma sha Allah tabaarakallah in ay maanta soo dhaweynayaan wafdi ballaaran oo ka kooban ilaa 15 xubnood oo hogaaminayo Allah dhowre Garad Cali Garad Jaamac. waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa airportka Jomo Kenyatta madaxda Khaatumo State iyo isimadayada. waxaan soo dhaweynaynaa madaxdayada noo soo socota oo aan ugu diyaarsanahay halkan golo dhaqameedada madaxda wafdiga kale la socota dhamaantii waxaan leenahay soo dhawaada aad iyo aad baan u faraxsanahay galabta dareenkaygu aad buu u kacsan yahay shucuurtayadu. wafdidan ayaa waxaa la filayaa in toddobaadada soo socda ay u ambabaxaan wadamada kale ee deris wadaagta la ah dalka Soomaaliya sida South Africa iyo Uganda halkaasi oo ay kula kulmi doonaan jaaliyadaha Khaatumo ee wadamadaasi. taniyintii la aasaasay maamulka Khaatumo State of Somalia horaantii sanadkan ayaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalkani Kenya waxa soo gaadhay wafdiye kala duwan oo ka tirsan golaha 10 ah ee ugu sareeya maamulkan hoggaanka dhaqanka iyo ka siyaasadda ee maamulka Khaatumo waxaana wafdidan aad loogu soo dhaweeyay galabta magaalada Nairobi waxaana soo dhaweynta wafdidan ka dhex muuqanayay jaaliyadaha Khaatumo State ee dalkani Kenya. Cabdiraxmaan Cumar Cabdi Cabdiraxmaan Soomaali Royal TV Nairobi Kenya.